قبل وقادو هبلو وير قلي كرا هبلو قيلا دعين كرا هبلو قيسي ديلي كرا قبل قبل من أهانا كرا هبلو تلادا قوين كرا كرتا مدال كنقي كرا قارا شدا إساقا مدا قبل قبل لنا قوة قبل قيسكينا مويه قي كلمة شوغان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم دمان مرت شرفته مدحدا runtii dhalinyarada aan soo casuunay dhammaantood marka hore waan ku soo dhaweynayaa barnaamijka iyo golahayaga talamaal waan ku soo dhaweynayaa gobolka Togdheer gaar ahaan dhalinyarada maanta nagu cusub waxa iyaguna mudan intii aanan hadalkayga guda gelin oo maanta inala joogta dhalinyaro 8 ah oo ka socota wadanka Djibouti ayaa inala joogta iyadana waa marti sharaf runtii maanta gobolka Togdheer ayaa soo casuumay way mahadsan yihiin waana mudan yihiin inay markan iyo mar labaadba gobolka ku soo dhawaadaan insha Allah waan idinka xaqabtini doonaa gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa oo dhan madaxdiina wayna la joogtaa waxaana kan uga mahadnaqayaa dawladda dhamays madax iyo mijabo la isku duubay haday tahay dawladda dhexe haday tahay dawladda hoose madaxda kan maanta inay la joogta dhamaantood waxay garab lixaale ka qaateen suurtagelinta iyo qabsoomida barnaamijkan haday tahay dhiirigelin iyo haday tahay maskax iyo haday tahay muruqba iyo haday tahay maalba marka labaad maanta halkan waxaynu diyaar ugu nahay furitaanka barnaamijka la dhaho hal dheh barnaamijkan hal dheh horta intaan guda gelin macnihiisa iyo wuxuu ka hadlayo barnaamijka asliyan waxaan ugu tala galnay oo aan ka koobnay 3 party maanta ah oo furitaankii ah barnaamijka ah iyo party galabta ah oo ah barnaamijka dhalinyarada qayb kamid ah inay galabta ku qoran tahay iyo party caawa oo barnaamijka dhalinyarada inta ka sii dambeysay hadhay ah 8 ah iyo abaalmarinadii haday tahay shirkado iyo haday tahay madax iyo haday tahay dhalinyarada kalaba iyo haday tahay qaybaha bulshada ee activity-yada ku hayaba intaba barnaamijku saaka waxa halkan aynu fadhinaa kaliya tadaafurkiisii sida boorka ku xusan barnaamijku 6:00 inuu bilaabmay ahayd ilaa iyo caawa 9:00 fiidnimada uu socdo barnaamijku sidaas uu continuous ku ahaa saaka furitaankii insha Allah galabta haduu Ilaahay nafta inoo daayo sectionkiisii labaad baynu galeynaa waanu mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka mahad celinaynaa sida maanta saakana noo soo qaabisheen nagasti galabtana noo timaadaan iyo caawana waanu rajaynaynaa 100% barnaamijkan hal dheh wuxuu ka yimi uu ka soo maaxday fikradiisa iyo qorshihiisa iyo asaasigiisuba golaha talamaal hablaha golaha talamaal ayuu ka soo maaxday barnaamijkan markii aanu aragnay baahiyaha bulshada dhex taala inaan laga gayoonin hal iyo 2 iyo 3 toona waxaan ugu tala galnay bal hal madal oo simbali ah ay ku kulmaan gobolada Soomaaliland oo dhami iyo cidii nagala soo qayb gali kartaba iyo qof kastaba dareenkiisa wadananimo inuu ku soo gudbiyo barnaamijkan oo ka hadlaya dhammaan waaqaca maanta aynu ku jirnaa nooc kasta uu yahay haduu yahay caafimaad hoos u dhacay haduu yahay dhaqaale hoos u dhacay haduu yahay dhaqan hoos u dhacay haday tahay ilbaxnimo hoos u dhacday haday tahay maskax iyo tacab hoos u dhacay intaba baahi kasta oo dalku maanta uu qabo barnaamijku wuxuu ka hadlayaa soo kicintiisa iyo runtii eedaynta yar ee toosinta ah inaynu isaxno oo qof kasta oo maanta madashan ugu marti qaadan mowduuc buu sitaa mid dhaqaale ka hadla mid caafimaad ka hadla mid dhaqan ka hadla mid kastaba mowduuciisaasi waxa weeye waa xanuunkii markii hore inagu dhacay fayraska aha iyo dawadiisii ayuu hayaa marka waxaanu u baahanahay maskaxeena caafimaadka qaba inay ka faa'iideystaan barnaamijka dhalinyarada inay ka faa'iideystaan aan la tacab qasaarin haduu Ilaahay ka dhigo barnaamijku insha Allah kuma koobnaanayo gobolka Togdheer oo kaliyaata waxaanu balan qaadana doonaa golaha talamaal in aanu sanad kasta haduu Ilaahay nafta noo daayo gobol ku qabano dhalinyarada maanta nala joogta sanad kasta gobolkooda aan uga casuunaano sanad kasta aan gobol ku qabano barnaamijkana faa'iidadiisu ay saa ku sii socoto oo aanu noqon barnaamij ku istaaga gobolka Togdheer ama hal maalin oo la qabtay kobac dhaqaale ama horumar dhaqaale
markaynu afka Soomaaliga eegno wax micno oo si weyn oo kala duwan ma laha laakiin in economy amaba cilmiga dhaqaalaha marka loo eego waxa u dhaxeeya difference weyn difference-ga u dhaxeeya waxa weeyaan haddaan idin soo koobo haddii aan idin idhaahdo ka waran GDP-ga dalku maanta wuxuu joogaa heerkii u sareeyay oo waxa weeyaan GDP-ga dalka ee per capita-ka qof walba ku soo hagaagaya waa $300 bishii haddana living standard-ka bulshadeenu aad bay u hooseysaa oo waxaynu degannahay wada cariirshiyo buulal miyay isqabanaysaa waa maya isma qabanayso haddaba economic development-ga waxa loo yaqaano amaba horumarinta dhaqaaluhu waxay ka hadashaa waxa weeyaan waa living standard-kii iyo GDP-ga dalka turjumaya inay israacaan dalal badan baa jira oo living GDP-ga dalkooda uu aad u sareeyo laakiin living standard-kooda uu aad u hooseeyo kolley day ku kadiisa heedeen yar nastaabay ahayd ma manaanaya qoladiina laakiin waa runtii kolley waa fikrad amba hadal uun laga dhiibanayo aan filayaa saan jecelahay de barnaamijyadan oo kalena waa barnaamijyo ay u baahan yihiin dhammaan dhallinyarada dalka oo dhan in loo sameeyo golayaal ay isku arkaan oo kale amba afkaaraa lagu wadaarsado amba wax la isku yidhaahdaba sidaa og tihiinba dee dalkeennu amba dal kastaba waxa muhiim ugu ah waa dhallinyaro waxa ugu muhiimsan ee lagu tabca amba la horumarin karaaba waa dhallinyaro inta dal horumaraysaana waa dhallinyarada amba lagu tabco waa dhallinyaro runtii dhallinyaradan barnaamijkan soo agaasintay waan hambalyaynayaa ugu horreyn kuwa kale la midka ah ee barnaamijyada noocana kala qabtan ayagana sidoo kale waan hambalyaynayaa wax fiican bay qabtaan waana kolley markii ugu horreysay barnaamij noocana lagu soo casuumo amba aan xubin ka noqdo cidda lagu casuumo anigoo ka yimi meel ka baxsan magaalada lagu qabtay runtii dee in reer burcaaban ahaaya amba 9 bilood magaalada ka maqnaa imike mareedda baa lagu tiriyey miyaa yeelkeeda waxaan aad u mahadsantihiin dhallinyarada amba waxbarashada waa shayga ugu muhiimsan ee qofka bini aadanka isku horumarin karaya waa waxbarasho inuu waxbartaana waa muhiim haddaynaan waxbaran wax badan baa inaga naaqusmaya amba wax badan baa inaga lumaya iyo dhammaanba madaxda ka soo qayb gashay marka saddexaad waxaan aad u soo dhawaynayaa inamada ka yimi gobollada kala duwan iyo magaalooyinka waxaan leeyahay idinkuna ku soo dhawaada gobolka Togdheer aad iyo aad baan idin soo dhawaynaynaa idinna jecelnahay waa arkaysaan burco caawa inta idin daawanaysa ee idinku faraxsan halka odhan lahaydeen haddaan eego barnaamijka waxaa kaloo aad ugu mahad celinayaa hablaha dhallinyarada maasha allah ee talamaal waa hablaha aad u qaaliya aragaana waa hablaha aad u yaryar mar kale waan ku faraxsanahay inay hablihii burco intay istaageen madal la sameeyeen awoodoodu waxay ahaydna ay burco wax ugu qabteen waxaan idin leeyahay golaha talamaal garabkiina nahay haddaan nahay hablihii horumarinta burco anaguna waananu ku faraxsannahay madaladana aad soo qabanqaabiseen iyo dhammaanba gobollada soo casunteen ee awoodeeda yeelateen barnaamij effective oo wax ina tusay waxaan leeyahay bahda yani aynu ku dayanno sida ay wax u qabteen insha Allah tacaala kurana shaqayno oo aynu ku taageerno waxay qabteen insha Allah tacaala aynu noqono kuwa ku garab istaaga ugu dambeyn mihnadaydii macallinimo iyo imtixaanadan u baxsanayaa ee burco ay ceeb ayna dil hoganaysa more than 15% ardaydii primariyadu way dhaceen way dhaceen ardaydeennii secondaryada abad moodaayo kontaneeyaa dhacay laakiin taana inaynu ku faraxsanaano maaha oo burcaba 11 qof baa ee gaadhay bilaahi calaykum taasaynu ka joognaaye bal aynu hoos qof walba u foqo isugu noqo halkaana insha Allah tacaala ha lagu noqdo eedana waxaan saarayaa ardayga iyo waalidka sababtu waxay tahay macallinku in laala intuu wax dhigi karayo wuxuu dhigi karayo dadaalkiisa uu galiyaa uu dhigaa laakiin xilka saaran inuu ka daba tagaa waa ardayga cidda ku monitor garayn kartaana waa waalidka absolutely kaalintii waalidku maanta tacliinta way ka maqan tahay oo ma jirto kaalin waalidku ardayga oo ku daba gala ardaygiina dee waa ardaygaas siduu doono yeelay ee xaaladiisu faraha ka baxday aad iyo aad baan uga xumahay xaaladda aqooneed halkaynu maanta ka marayno waan ku faraxsanahay sidaad noo soo dhaweyseen eed noogu marti qaadeen iyaan ku faraxsanahay ood ku mahadsantihiin jabuuti baan idinka nimid dalxiis baan nimid boorama hargeysa barbara sheekh burco intaba waan soo marnay wax fiican baan kala kulmanay dad fiican baan kala kulmanay
hawsii fiicanaata reer burco hablaha reer burco ayaan aad ugu mahadnaqaynaa saad noo soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin 100% idinkana waxaan idinka doonaynaa sidaa oo kale inaad noo timaadaan walaalihiin baan nahay dad idinka mid un baan naho walaalkiina inaad noo timaadaan oo saas oo kale aan idiin soo dhaweyn haddii ilaahay ka dhigo social mediaha si wanaagsan baa looga faa'iideysan karaa dhalinyarada idinka soo korayna dhibaato ayuu ku samayn karaa waayo waxa jira filmaan xun dhaqanno xun oo laga bartaa jira waxa jira wax badan oo dadka laga bari karo laakiin inaga muxuu doorkeenu yahay doorkeenu waxa weeye inaynu da'yarteena iyo dhalinyaradeenna aynu ku abaabino sidii dhinaca wanaagsan looga faa'iideysan lahaa oo casharada looga baran lahaa oo macluumaad ku jira looga faa'iideysan lahaa sida wadamada horumaray imika uga faa'iideysteen teknolojiyadda waxaan ku soo gabagabayn lahaa mawduucan laga hadlayay ah wadciga aynu ku noolnahay oo nolosha sideedaba diinta ka hadashay xayaadku inta badan diintu waxay qaybisaa afar nooc oo qaybisaa oo xayaatu rixm oo ah tii uurka hooyada lagu noolaanayay oo 120 maalmood ama 4 bilood ah iyo xayaatu dunya oo iyaduna ah tii adduunka aynu ku nooleen iyo xayaatul barsakh oo yana tii qabriga iyo xayaatul aakhira oo ahayd xayaatul khaalidiin tii iyada lagu waariyay marka dadkeenu inta badan way isku mashquuliyaan nolosha deetana way ku adkaataaba dhibaatooyinka dhacay adduunkan maalin baana ka soconaysa yawma laa yanfacu maalan walaa banuuna ilaa man ata allahu biqalbi saliim dee waxaa jiraysa maalinaan caruur iyo adduunyu midnaanay ku anfacayn oo laga wada soconaya adduunkan maanta taasi waxa weeyaan waa maalinta aakhiro haddii aan ku horeeyo nolosha koowaad ee ah riximka waa maalinta la qoro qofka wixii uu cuni lahaa inuu qofkaasi qof wanaagsan uu yahay oo zakiya inuu qof xun yahay janno iyo cadaabtuu tegi lahaa waa xayaadka koowaad ee qofku markuu uurka hooyadii ku jiro haddaba xayada ugu dhibta badan oo xayaata dunya waa taynu inta badan ka fikirno laba qodob baana laga fikiraaba qofkaasi wax tagay uu ka warwaro iyo wax soo socda oo ka fikiro sidoo magaranaysa uu waajihi lahaa ila qabaanu qaadana waxaanu ku wareegaynay bakhaarada iyo suuqa meheradaha ah waxaanu weydiinanay inay sadaqa ku ridaan been wallahi idima sheegaye rag iminka suuqa haday igaga soo horbaxan aanu iskaranayno oo bakhaaro waaweyn haysta ayaan ugu dhaadir waxa diran nololama yimaado adeer waxa nololama yimaado qaar kale waxa nagu dhaheen diinta idin banaysay idinku haweeney guriyihiin inaad ka soo baxdaan waajibta marka ugu horeysa bulshadeena cunsurinimada hay iska deyso war haddii raggi dadkii ay fahmi waayaan oo dareenkii la fahmi waayo dumarku uu kacaya war haddii raggu damqan waayo dumarku uu damqanaya war haddii dumarku damqan waayaan raggu inay damqadaan baa loo baahan yahay ilaahay wuxuu yidhi wuxuu dheelitirkiinu dhammaystirmaya markay nin iyo gabadh isu tagaan qoys bay noqonayaan maxaa qoys loo yidhi waynu is dhammaystiraynaa adiguna ma tihid qof dhammaystiran annaguna ma nihin qof dhammaystiran 100% waxaan idinka codsanayaa bulshadeena dan yartaa in hoos loo eego 100% mar maaho laba maaho saddex maaha dawladda xubnaha ay nagala jooga barasaab ku xigeenka xildhibaanada jaamacadaha ay nala jooga caawa ee dhalinyarta gobolada ka timi war tog dheer oo kaliya ta kama hadlaayo tog dheer haday noqoto gobol intuu isku filnaado maanta dayartiisa caawiya hadduu noqdo oo goboladii kale ay dayacan yihiin waxa laalay waxaynu faa'iido ma jirto teeta la ku qaadan mayno inteeni kala dayacan aynu iska duuno isha iyo ishaarada aynu iska duuno marti sharafta hablaha dhalinyaradan ragga iyo ururkan soo abaabulay ee golaha talamaal ee halkadhe aad iyo aad baan bogaadinayaa in hablaha kaligood hawsha lagu daayo ma inay namada reer burcana la qabtaan bay ahayd laakiin haday ku daayeen ku daawadeen anaga la boorama uga soo socdaalnay oo garab istaagayna si ay tadamba ba isku canaantaan oo u garab istaagaan insha Allah taala halkan wax lagu kulmiyay bulsho kala duwan oo ka kala timid deegaano kala duwan oo hadal ahaan iyo luqad ahaan iyo dhaqan ahaan kala duwan taasina waa tadhaxalsiisay ninka Djibouti ka yimiday oo aan cabsoonayaa laha luqadu ka xishoonayay marka mar dhaweed anagu halkan hoos joogna ayay inaan soo garamarto gabadha u baneeyay buuri gabadhii baa tiri alla gabadh meehiye ka daa marka gabadhu xaqaana waxbay ka tahay xaqana waxbay ka tahay ilaa aniga baa imka yar baqayo la bilood wax kala tiraa
marka taa lafteedu waxa ugu wacan waa isdhexgal la'aanta dadka qof kastoo weydiiyo reer burca way yar yihiin qof boorama soo gaadhay qof kasta waxa ku odhanaya hargeysa waan idin laakiin boorama ma iman taanu inaan nimaadna ma ahayn laakiin waan iga wanaagsan oo anaga soo dhaafnay iduguna burca soo dhaaf insha Allah waan rajaynaa inaad noo timaadaan waliba aad baad ii soo dhaweynaa xagga soo dhaweyntoona lagu xantaay baabuur baan igaga hor imanaynaa insha Allah inaad dhaqanka iyo hadalka iyo luuqadda iyo magaaladii huunada timaadaan oo hadal naxariis badan yaallo ayaan aad ugu faraxsanahay nala soo qayb aad noogu iman doontaan burco kolle hadal kuma gaadhayno oo wada sooraan laakiin haddana waan inaan gaadhno yaan isku dayaynaayo luuqadiina aan la keenno intaan joogno insha Allah aad iyo aad baad mahadsantihiin anu wax kale ma idhaahda ma odhanaya waxaan leeyahay dhibaatooyinka jira ee laga hadlayo ee hadday tahay tahriibta qabyaaladda xaaladahoo dhan waxa sababa shaqo la'aantana waxa keenay waxaan jirin xukuumad aad culays u saarta xagga dhalinyarada waxaad moodaa dalku inuu ku jaahureersan yahay xagga siyaasadda oo keliya laakiin xagga caafimaadka isdhexgalkii dhalinyarada in shaqo abuur la sameeyo oo mashaariica la fuliyo ay aad gaab ugu jiro أنا ورت حسابي قلنا أكونت كنا أبغى نضوج الحسابات waxaan nidhahaa waa ciidaas oo qofku ku qariilay marka shaqaaltay in yaroo kamid ah uu soo ku qariilay wuxuu ku dhintaa haw laakiin marka adigu waa farsamo samaysto muxuu ahay ama dhowr qof ama dhowr hablood oo jaamacad ka baxay contribution sameeyaan business yar sameeyaan waxa doominta business-ka nabiga u duceeyay waxyaabo fara badan oo ka faa'iideynin ama waa aan control lahayn ayaad ka helaysaa oo muxuu ahay kala kulmaysaa noloshaada iyo experience-aada waxaagii iyo inuu isku borogaramin aynu xafiis fadhiisano ama qof aynu shaqeyno taasaan kusoo gabaynay assalaamu calaykum waraxmatullahi samayn karaysaan oo ay guulaystayaashu sameeyaan qorshayaal samaysaan qorshayaal maalinle ah kuwa sanadle ah iyo kuwa bilo ah wax akhrintu waa astaanta ay leeyihiin dadka horumarka guusha weyn ka gaadhay waa inaad isku daydaa isbuucii inaad qorshaysato inta buug aad akhrinayso bishii inta buugeed iyagana aada akhrinayso ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa golaha talamaal oo barnaamijkan inoo soo qabanqaabiyey iyo cid kasta oo markaas lug ku lahayd oo iyaguna kala qayb qaatay waxaan rabaa inaad golaha talamaal aada gacan qabataan oo aad mar walbaba aada dhiirigelisaan haddii aan gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan waxaan aad u salaamaya dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka qiimaha badan waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo ka soo shaqaysay qabsoomidda barnaamijka qiimaha badan ciddii fikir muruq iyo maal intaba ku darsatay runtii waxaa ugu horrayntiiba lala dhacay mudan tahay magacooda oo ah talamaal oo aan oran karo taladu waa waxa ummadii ay ku dhaqaaqdo oo ummadii waxay ku horumartaa tale oday iyo taag barbaar sideedana hawlaha waxa weeyaan way kala sarreeyaan oo wax kastana salka laga bilaabaa markii la wada tashado baa nabad la helaa markii nabad la helana horumar baa la gaadhaa nolosha caynkaas ayay u dhisan tahay waxa weeyaan kollaa mar haddii aad ka shaqaynaysid danta guud arrimaha ummadda ka dhexeeya markasta waxaa kaa hor imanaya waxa caqabada marka waxaan ku dhiirigelinayaa inayna han jabinoo awaan horeba wuxuu yidhi oo la odhan jiray maaweel dadka kale qofkoodii dhisay dhiirigeliyaane markii uu dhaliilaha arkay dhalada saaraane haddii nafka dhalatay soomaali baan dhabaq la'aanayne sida dhuugga xoolaha cunay kuugu dhegayaane waxaynu aragno oo runtii xaqiiqana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa marti sharafta iyo aqoon-yahanka gobolka martida gobolada kale waxaan si gaara u salaamayaa hablaha talamaal ee nagu soo casuumay barnaamijkan haddaan nahay anigu hablaha horumarinta burco aad baan ugu mahad celinaynaa say nagu soo casuumeen nagu marti qaadeen barnaamijka halka dheh haddaan halka dhaho amaan u gudagalo barnaamijka waxaan ka odhanayaa barnaamijka horta dhalinyaradu waa inay wadaninimada ay bartaan oo wadankooda haddii qofku wadankiisa jeclaado ama wadaninimada uu barto wax ka maqan ma jirto ama
waddankiisa uu jeclaado sidoo kale uu dastuurka waddankiisana barto marka intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkala talinayaa han baan idinkala ballamayaa han dhallinyarada han yeesha bidhii wuxuu uga soo dhoofay reer ingiriis buu ahaa waxaan ugu tegey manchester magaalo la ydhahdaa baan ugu tegey shaqana waa hayey markii la yidhi dalkii doorashaa ka dhacaysa buu ka yimi ujeedadiisu lacag ma ahayn xaggaasa u lacag badnayd waxaa qaali la noqotay in dadku dabagalo oo la yidhahdo ninka hala doorto oo laysugu tago ra'yiga dadku inaha helo awoodda dadweynaha inuu la wareegaa buu u yimi meesha way ka qaalisan tahay inuu lacag helo taasi waxaan dinoon lahaa hana ogaada ereyga labaad waxa weeye dhaqankii yaa lagu ogyahay dhaqankii ingiriisi baa wax isugu tilmaamaysaan inankii baan dhegaystay halka taagnaa 10 erey uu yidhi mid qura waa ka Soomaali ahaa wuxuu tilmaamayay gorgor buu tilmaamayay goodira waa yidhi ninkii xigay baa yidhi goodirku miyuu duulaa waxaan sheegi maayo goodir ee gorgor buu sheegayaa laakiin waa la yaab ma laha waa meesheeday la gashay بالحقيقة قراها ترمال إما كان حقيقة وشيء وحلا قراها هو قراء لو بهنا وقبل هو بهنا قراها ده مغاشة ألقى إنه سوسة تاجي ترى يبان ترى مناسبة ده أيه السواق من قابيان أورورو كشغير يعني ما بشده هي الشخصيات لكن هو قراها ترمال marka golaha agto anagu gola deegaan baan gola deegaan oo degmada laakiin golaha taramaal runtii waa magac weyn waana ka muuqataa ablahan halkan inoo soo qaban qaabiyay runtii qiimaha badan munaasabadan qiimaha badan iyo barnaamijkan aadka u qiimo badan oo halka dheh runtii waa waxaynu u baahnayn halka dheh waa barnaamij aynu u baahnayn in mar horeba ay inoo soo qaban qaabiyaan aanay ku mahadteen runtii golaha taramaal guddida iyo xubnaha iyo cid kastoo barnaamijkan ama inoo soo diyaarisay oo fikradda lahayd waana runtii ka soo qayb geli doonaa insha allah kulleba anigu galabta haddii aan dee waqti u helo waan soo dhaweynaynaa haddana golaha deegaanka waanu saanu maaragtay aan imika baan iyo xogayihii aanu runtii aanu joogno xogay waa maalin runtii maalin khamiisa oo shaqadu runtii shaqo badan taallo iyo xogay waa kan inala joogaa aan joognaa aad baan u danaynaa aad baan u jecelnay aan la shaqeyno golahan wax kastoona looga baadana diyaar baan unay halka dheh runtii oo barnaamijka halka dheh oo halka dheh qof waliba meel buu la qabanaya halka dheh hadraawi waa wuxuu su-aal baa la weydiiyey hadraawi waxa lagu yidhi inta badan waxa la yidhahda heesta maxaad uga jeedi iyo gabayga kelmadda maxaad uga jeedaa hadraawi la weydiiya inta badan dabeetana maalin baa la weydiiyey gabaydiisa ka mid oo la daalaalay baa la weydiiyey baydad ku jira dabeetana wuxuu ku yidhi anigu sidaan u jeeday haddaan idiin sheego qaadan maysaan laakiin qof waliba wuxuu jecel yahay inuu meel la qabto af soomaaliga qof waliba meeshu jecel yahay buu la qabtaa laakiin hal ka dheh ayaan anigu doonayaa hal ka dheh inaan sidaan anigu aan u fahmay kelmadda hal ka dheh af soomaaliyan inaan siira dul taago hal ka dheh waxay noo soo hal ka dheh waxaan anigu u fahmayaa oo wax runtii annagu amaanu ama dhalinyarada jaamacadaha noqdeen ama dhalinyarada gobolka ha noqdeen wiilal iyo gabadh ay garan waayeen hore runtii ugu fikri waa hal ka dheh waxa weeyaan soo bandhig wixii aad hayso weeyaan wixii aad fikirayso soo bandhig wixii aad doonayso wax ka tiraa wax ka dheh wixii aad doonayso wax ka dheh hal ka dheh marka runtii anigu waxaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo waktigii waxaan ku jirnaa wakti 2019 ku jirnaa 20 baynu gelaynaa markaynu 20 gelayno adduunyadu technology marba uu sii soconaya maalin dhow waxa dhacaysa kollaba dee innaga maahee caalamka in dadkii shaqo tegayeyba la waayo oo lagu shaqeeyo IT-ga technology
qof isagoo guriga jooga inuu shaqadii uu tegi jiray ka shaqayn jiray inuu halkaa ka shaqeeyo waxaana keenayaa adduunyadan runtii socota marka telefoonka aan sita anigu smartphone-ka qof waliba uu sitaa waxaa laga yaabaa dhammaanteen waynu sidanaa ayaan doonaya inaan halka idhaahdo anigu runtii aan jecelahay inaan meel kastoo aan joogana ka idhaahdo telefoonkani wanaag iyo xumaan labadaba uu leeyahy anigu markii aan ardayga ahaa fursad aanan haysan bay haystaan ardayda maanta joogtaa oo ah in wax kasta halkaa ka helayaan imtixaankii halkaa ay ka helayaan marka haddaan kaa hayn lahaa runtii ardayda maanta joogta way ka fiicantahay kuwii hore waxaan garanaya burco galaas ingiliisho adla sunni cabdikiliyati ka dhigo saddexda gelin ma la dhigto maantana halkana qofka online wax doona ka baranay markaan odhan lahaa waxaan halka odhan lahaa anuu halka odhan lahaa fursaddan wali hore maraa inaan qofkii ugu horeeyey inkastoo galabtuu barnaamijku haray waxaan wax ka odhan lahaa anigu internetkan telefoonadan aynu isticmaalayno faa'iidana wuu leeyahy khasaarana wuu leeyahy waxaan odhan lahaa dhinaca wanaagsan aynu isticmaalno dhinaca wanaagsan waxaad arkaysaa 10 qof oo meel wada fadhiyo 8 ka mid ah telefoonka jooga hadda way balladaan way isu yimaadeen waxay isugu yimaadeen haas markay isu yimaadaan mid walba telefoonkii galaya wixii ay ka wada hadlaayeen waxaa laga yaabaa inaanay waqtiba inay markay daalaan ay kan ku daalaan marka dambe inay yidhahdaan hawshii ay bilaabaan marka waxaan odhan lahaa loo isticmaalo qofkii doonaya inuu qur-aan ka barto wuu ka baran karaa kii tasfiil doonaya wuu ka baran karaa kii doonaya inuu degree iyo master iyo PhD ku ka diyaarin kara marka waxaan odhan lahaa telefoonada inkastoo ay ku ficneed inaan waalidiinta inta badan aanu sheegaa telefoonkaas ayaan odhan lahaa loo isticmaalo dhinaca wanaagsan ayaan odhan lahaa loo isticmaalo oo ha la helo dhalinyarada halkaa joogta barnaamijyadu hadday joogaanna bal ha ku soo darsadeen barnaamijka kolleba sheekh mustafaan jecela inuu ka diyaariyo muxaadaro runtii marka waxaan odhan lahaa xumaan baa loo isticmaala xumaano kasta wax kastoo xumaana oo la doonayo in la sameeyo halkan baa la soo dhex mariyey ilmi yaraa 10 jirkaa baa isticmaalaya marka waxaan odhan lahaa inagu dad waaweyn bayne dhalinyarada yaryar haynu yimidna telefoonada noocaas kuwa ha isticmaaleen waa qasab inaynu helno qofkii markuu caamada ku maqayaamay iskuulka ka hadla isticmaala anigu odhan lahaa waa inaan soo dhaweeyo waxaan ballan qaadaya anigu inaan golaha talmaal waa gole nala mid ah golaha deegaanka waa golihii labaad ee magaalada ka jira marka waa la shaqeynaa waa soo dhaweynaya golaha aad baa soo barnaamijyada magaciisa wanaagsan sida horeba loo sheegay ee talamaal waa u hambaliyeynaynaa waa u baarigaynaa waanaanu soo dhoweynaynaa runtii horey soomaalidu u tiri tale aan la ruugin waa lagu rafaadaa ama talo waa la rogrogaa barnaamijkan ay taytalkiisa ka dhigeen habluhu talamaal waa runtii maskax badan baa meesha ku jirta aad baan uga mahadnaqaynaa waana soo dhoweynaynaa waxaan kaloo hoos uga daadegayaa waxa uu yidhi barnaamijkan halaydheh xildhibaanka mar dhoweyta ka hadlay wuxuu yidhi moobilku ayuu ka dhigay baytalqasiid oo runtiisa waa sax aniguna hal baan odhanayaayoo halkaygu waxa weeye waan idiin sheegayaa waxaynu ka hadlaynaa oo barnaamijkan ku daraynaa oo aan odhanayaa waxaa la yidhaha aafada tahriibka aafada tahriibku aad iyo aad bay noo saamaysay waddankeennoo dhanba gaar ahaan gobolkan togdheer waa meelaha aad iyo aad tahriibta ugu badantay had iyo jeer marka la sheego dooni dhacda dadka reer burco tiro aad u fara badan baa had iyo jeer kaga jirta waynu ognahay taasina macnaheedu waxay muujinaysaa in ay xoog u tahriibaan reer burco dhalinyarteedu marka barnaamijkan talamaal waa in lagu daraa oo ay dhalinyartu tadawur ka samaysaa oo maskaxdeeda kaga shaqaysiisaa oo aqoonta dugsiyada sare ee jaamacadaha ay ka soo baxayaan ay dadka uga faa'iideeyaan sidii ay ugu caqli celin lahaayeen dhalinyarta ku tamaniyeysa had iyo jeer waxa la yidhaha aafada tahriibka qofku markuu tacliinta dugsiga sare ka soo qalinjabiyo ama jaamacadda heerka jaamacadeedu ka soo qalinjabiyo ma aha inuu shakhsiyadiisu nagu shaqo tago oo yidhaahdo naftaydun baan ku anfacaya waxaa loo baahan yahay inaad dalka iyo dadkoo dhan wax tarto oo aqoontan wax ku bartay aad ku baratay waalidkii kugu soo tabcay iyo macallinkii wax kuu dhigay
in aad adiguna ka faa'iidayso aad ummadda ugu faa'iidaysaa muhiima markaad dhalinyarta waxaan kula tarinayaa oo maanta halkan ka odhanaya aafada tahriibka dhalinyaroy waa in aynu had iyo jeer ay idinku dadka uga caqli celisaan dadka tahriibaya maaha dad waaweynna maaha caruur yaryaroo aan qaangaadhinna maaha waa dhalinyarta dugsiyada sare ka soo baxda ama jaamacadaha ka soo baxda dadka noocaasa gradekeedu ama da'doodu ilaa 18 jir ilaa 30 jir inta u dhaxaysa ayaa xoog u tahriibtaa marka ina ka wacyigelisaan oo wax u sheegtaan oo reer talamaalay talada taa ku dartaan waa shay muhiima weeye waxa dhacda sida qaalibka oo had iyo jeer magaalooyinka ka dhacda tusaale aan idiin soo qaadayaa reer baa inankii ama inantii ka tahriibaysa waxa loo iibinayaa aqalkii reerku ku jiray reerkii guriga hantidii markaa uu lahaa way ka wareegtay reerkii wuxuu gelayaa markaaba rafaad iyo kiro iyo bil soddonkeedo lacagtii la idhaahda keen qofkaasi markuu ku tahriibo 5 qodob unbaa hor yaalla marka u horeysa inuu ka badbaado xeebaha iyo dhulka rafaadka ay ku cuntay yeedaya waxa la mid ah waa qodob marka labaad markuu Suudaan iyo dhulka tago waxa koow la kulma oo ku dhaca horta marka u horeysa qofkii laftiisii ayaa la kala iibsaday imka sida ka dhacda Suudaan qiimo yaroo jaban baana qofkii bilaalamka la kala siistay ina ka warhaysaan iyo kala mooyaan $400 baa la kala siistaa dhalinyaro waan idin sheegayaa qofkii bilaalamkaas gurigii $40,000 halkan loo kala siiyay waxa la kala siisanayaa $400 carab xuno gumaysiya ayaa ku adeegsanaya halka beeruhu ku falanayo sidoo qoobku uga xidhay inan ku doono ha ahaado qodobka labaad ee aan sheegay hadduu ka gudbo oo uu gudbo xaggii dhaqaaqii lileeraa magafa taagan oo markaana oranaya $10,000 ka haddii kale waxa weeye waxaan kala baxayaa sababka iyo wadaha iyana waa caqabad kale taagan taa haddii uu ka sii gudbo wuxuu u gudbayaa waa doontii iyo rafaadkeedii iyo inta ka baxayso yar iyo badweyntii ku cunayay nibiga bahalka iyo xaas bahalku ilbaxbadeed taasina waa caqabad kale intaaba hadduu ka gudbo oo qodobka u shanaad u dambeeyo uu Yurub ku galo wax allaaliyo wuxuu ku soo kordhinayaa ama sharci degdeg loo siinaya ama Yurub inay dadkii nacday intaasina way u dambaysaa marka anigu waxaan leeyahay dhalinyartu waa in aqoontooda ka faa'iideysaa oo dadka tahriibka ah imika waxa la sheegay xalay oo dambeysay doon qaraqanta baa la sheegay oo badda Pacific ku qalqantay dhibaatadeeda dad baa ku dhimanaya dad Carabi leeyin Afrikaan bay leeyin dad Somaliland leeyin nooc walba way leeyin aafada tahriibtu waa qodob aad u muhiima inaynu meel kasto aynu isugu nimaadnana iska wacyigelinaa waa muhiim maanta qof kastaaba wuu soo toosaa alxamdulillah ama ha shaqeeyo ama yaanu shaqeeyno qofka ajabraca ugu baqtiyeen maqal way yar tahay haday jirto maanta qof ku gaajoonaya runtii marka waxa weeye wadankeenuna waa dihiyay petroolkii baa bilaabmaya warshadii sibirka imika la bilaabaya shaqooyinkii way bilaabmayaan wadankeenu waa feerjin dawladda tan waxay ballan qaaday oo hogaamiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in dhalinyarta shaqo abuur la siiyo annaguna haddaanu nahay degmada Burco sanad kasta waxaanu shaqaalaynaa miisaaniyaddeeda ku daraa golaha deegaanku ansixiyo inaanu dhalinyarta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka soo baxay shaqaalayno waanaanu ballan qaadina haddii Ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad baa u mahadsantiin waad soo dhawaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh موبل كان نقدر هيصنه وكارل وحاجرتا marka xagga wanaagsan laga eego anigu waan sitaa anigaygan waan sitaa waxna waa ka bartaa oo waxaan ka bartaa luqadan hadda bartaa waxaan ka caalin online baan ka dhigtaa habeen maalinba waan ku jiraa waxa kale oo aan ka bartaa waxa la wixii media warka soo gala waxaan oran lahaa wacyigelinta aan ku darsan lahaa
sidii wararka xunxun ee miidiyaha la gelinayo ama qaybta miidiyaha hawshaa sidii looga helgeli lahaa dhalinyaro iyo haween iyo ragba waxaa soomaali jebiyey haddeer dadka ummadda biniaadankaa jebiyey ama waxaysman kilib qulahoo la qaadayaba group dhan baa bin kara haddeer group kale haddeer oo kale waxaaba laga yaaba inay leeyihiin hal whatsapp leeyihiinba ay ku xidhiidhaan waxaaba la dhici karta qof baa wuxuu soo dhigaya kelmad khaldan inta ay yeelayso kelmaddaasi dhalinyarada ama groupkaas waa mid aad iyo aad u culus oo tafaraaruq dadka ku keeni karta kolley anigu intaan odhan lahaa waa inaha waxaan u mahad celinayaa golaha talamaal oo runtii dhallinyaro aada u firfircoon ah oo runtii muddadii ay jireen la odhan karo wax ku ool ah oo runtii muuqda ayay qabteen ama ku soo kordhiyeen gobolka togdheer waxaan rajaynayaa dhallinyarada kalena ee reer togdheer ama somalilanba inay ku daydaan ilaahay wuxuu inoo abuuray oo dhulkan inoo keenay waa xigmad marka koowaad ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun insiga iyo jinka uma abuurin ilaa inay caabudaan mooyaane waxaa kaloo ilaahay inoo abuuray ardadan inaan camirno oo ku xukunno wax wanaagsan aan ku camirno maskax wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan inaan ku hagno ayaa ilaahay inoo abuuray dan aakhirana waxaan la tegaynaa waxaas wanaagsan aan qabannay in ilaahayna ka abaalmariyo haddii wax xun aan la nimaadnana ilaahay markaa uu mucjisaheedana siinayo waa labadaas qaybood fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaa loo qaybsamaya waa xigmad ilaahay inoogu talagalay oo imtixaan ah oo laynku imtixaamayo dadka islaamka ah ama ummatu muxamedka marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in qof kasta uu wax bedeli karo waxna qaban karo intaa marka ka gudbo halka dheh waxaan la qabaa runtii xogayaha iyo xildhibaan bidhi labada aafo ay sheegeen oo mid qabyaaladda tahay mid ay tahay maxay ahayteen tahriibta midna moobilkan uu yahay oo runtii sifooyin khaldan loo isticmaalo waxaan rajaynayaa isagana in laga digtoonaado oo sidaa ay yidhaahdeen ayaan runtii la qabaa waxaan ku dari lahaa oo kale aafo kaloo ayaa jirto ina ragaadhisay oo runtii aynaan ogeyn laakiin wax badan oo adduunyada iyo aakhiraba ina seejisay oo ah aafada qabyaaladda taana waxaan doonaynaa biidni illaahi alkariim dowlad ahaan iyo shicib ahaanba inaan isu kaashanno oo aan sidii aan uga adkaan lahayn oo aan meel isaga saari lahayn oo danteenna mustaqbalkeenna iyo waxa dan inoo ah aan u soo jeensan lahayn ayaa maxay ahayteenay mudan waxaa la yidhi dowladdii dhexe ee soomaaliya markii wixii soomaaliya laisku ohan jiray qabyaaladda waa la aasay ninbaa maalindhowda iiga sheekeynaya odaya wuxuu yidhi halkaa dowladda hoose ka dambaysay halkaasaa lagu aasay waa la kafmayoo wax madow baa la soo aasay oo qof oo kale ah xabaashi baa la qoday waa lagu riday sabad baa dusha laga mariyey markaynu soo noqonnay buu yidhi 93 ayaan maalin anoo halkan jooga buu yidhi baan waxaan maqal dadka oo yaacaya reer burco war maxaa dhacay markaasaa qabyaaladii baa la soo saaraya oo maanta la soo bixinaya maalintii la soo saaray buu yidhi qabyaaladda ee reer burca la soo baxeen maalintii bay inay sii korodha mooyaane qabyaaladii ama ay xumaantii sii badato mooyaane wallaahi baynu u hagaagin buu yidhi marka waxaan u baahannahay reer somalilan iyo reer burca gaar ahaanba war qabyaaladii layna ka aasay aynu la soo baxnay inaan dib u aasnaan doonayna biidni illahi alkariim intaana inaad talada aad ku darsataan maxay ahateenay golaha talamaal ayaan rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijkuna dee ilaa caawa wuu inoo socon doonaa biidni illahi alkariim wacyigelinteeda iyo halka dhehba qof walba maskaxdiisa waxbaa ka guuxaya waxbaa ku jira horumarka waxaa horumarka ku jiro iyo waxaan horumarka una ku jirin iyo waxa dan aakhira iyo mid adduun inoo ku jira qof walba maskaxdiisa ayay ku jirtaa aqoon-yahan ayaa runtii loo badan yahay
ama boqolkiiba boqol maanta aqoon-yahan weeye dhallinyarada ayaa la rabaa inay wax beddesho iyada inay isbeddel samayso mustaqbalka iyadaa leh mustaqbalka haddii maanta uu ka xumaado oo laba oday ay meelina ku xirtaan oo intay qafrina ku xidhaan hargeysa ay la tagaan intay burcayna kaga tagaan 300 dhalinyaraba oday intuu meel ku xidho oo furihiina kala tago taasi mushkilad weeye waxaan rabnaa furaha ama qafilka laynu ku xiray qabyaaladda ina dhalinyarada aqoon-yahanka ay jabiyaan oo horumarkooda mustaqbalkooda aqoontooda waxbarashadooda ay insha Allah taala ay soo jeedsadaan